xarunta gobolka Mudug gaar ahaan goob ku taala koonfurta magaalada oo ah garoon ciyaareed halkaas oo lagu soo dhaweyn lahaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii ugu dambeeyay booqanayay Galmudug halka weerarku ka dhacay waxaa daqiiqado kadib geli lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kula hadli lahaa boqolaal dad oo isugu soo baxay isaga soo dhaweyntiisa sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga iyo kuwa caafimaadka 5 qof ayaa geeriyootay oo 4 ka mid ah yihiin xubno muhiim u ahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug sidoo kale dhaawacyo ayaa soo gaaray shacabka iyo ciidanka amniga ee goobta ku sugnaa taliye qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janaal Qooja Dagaare taliye ciidamada danab ee Galmudug taliye ku-xigeenka ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab qaybta gobolka Mudug iyo duqii hore ee magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Jumay oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in bulshada labada dhinac ku wada noolaadaan nabad iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa ku geeriyooday weerarkan argagixiso runtii maanta waa maalin qiimo badan weeye muhiimadeedu 8 Maarso waa ka qayb badan tahay waxay uga qayb badan tahay dadkii lafdhabarta u ahaa bulshada dadkii aqoonta u ahaa bulshada dadkii barbaarinta u ahaa bulshada dadkii dhaca u ahaa bulshada oo kala xirnaa waa maanta hal meel isugu yimid oo ka wada dhammaan xubnaha waxay ahaayeen tiirar adag oo ay nabadda gobolka Mudug ku taagneyd sidaas oo kale waxay ka hortageen dhammaan weeraro isxigay oo ay kooxaha argagixisada ku soo qaadeen gobolka Mudug ka hortagidda isku dhacyada qabaa'ilada diriraha ay siyaasaddu gadaal ka hagayso iyo wax kasta oo bulshada gobolka Mudug lagu midayn karo ay dhammaan xubnahan hormuud iyo horusocod ku ahaayeen muddada ay ka shaqeynayeen Mudug oo ay dib ugu soo laabatay saaxadda mustaqbalka iftiin ee bulshada Soomaaliyeed sidaas oo kale waxay marar badan si isku duubnay uga howlgaleen sidii loo fashin lahaa shabakado isbahaysay oo ka soo horjeeday ammaanka iyo nabadda gobolka Mudug taas oo muujinaysay doorkooda hogaaminta ee amniga inuu ahaa mid ka go'an in Mudug nabad ahaato dadkuna nolol helaan meeshaan laga saaro dhammaan isku dhacyada badankooda kuwa la soo waariday daqiiqada kadib inta uusan qaraxan dhicin waxaa la filayay inuu goobta la qarxiyey ka galo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble waxaa laga weerariyay goobta oo xilligaasi gudaheeda ku sugnaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug oo si isku mid ah ra'iisul wasaaraha u soo dhaweyn lahaa ruuxa isqarxiyay ayaan wadan baabuur balse ruux soconaya oo goobta markii uu ku soo dhawaaday isqarxiyay taasoo muujinaysa inuu ahaa weerar la diyaariyey ama qorshaysnaa waxaana goobta saraakiisha dhimatay ay soo gaareen isla daqiiqadahaasi ma jirto xog ka soo baxday laamaha amniga ilaa hadda sidaas oo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarkan waxaana muuqatay in ficilada argagixisadu ay weli yihiin kuwa nool laakiin dad badan ayaa rumaysan inaysan hakin doonin horsocodka iyo dagaalka lagula jiro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gobolada dalka qaar ka mid ah booqanaya gaar ahaan Galmudug iyo Puntland waxaana uu tagay arrimo la xiriira doorashooyinka loo dhan yahay inay dhacaan sanadka 2022 isku dubaridka ammaanka iyadoo weli uu jiro kala arti doonasho siyaasadeed hogaamiyaasha Soomaalida ayaa isku haysa kursiga madaxtinimada xilli ay kooxaha nabadda iyo horumarka diidan ay gumaadayaan bulshada waxgalkeeda